dugsiga Horyaal Primary and Intermediate oo ku yaala magaalada Caynaba gaar ahaan xaafadda Iftiin oo aanu saaka booqanay ayaa waxaan indhahaygu soo arkay khasaaraha weyn ee u geystay roobabkii laxaadka lahaa ee ka daayay muddooyinkii u dambeeyay magaalada Caynaba iyo guud ahaanba gobolkani Saraar. Khasaarahan laxaadka leh ee uu soo gaadhsiiyay roobabkii daayay dugsigani Horyaal ayaa waxa nooga warbixiyay maamulaha dugsigaasi Siciid Dubad waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale. Ku soo gudbinaynaa hay'adaha madaxa bannaan wasaaradda waxbarashada haddii xafiisyada dhibaatooyinka emergency-ga leedahay waxa la wixii dhib ka jiray wax ka tari karaa hawshan dugsigan ahaa dugsigii Caynaba ee qadiimka ahaa ay kuna dhaceen waxyaabahan roobkii soo food saarayay inta meelood ka jabtay hadeer kabarda kuma ururin karo laakiin geerka dhan ee uu ku wareegsanyahay iskuulkaasi iyo galaasyadii agabkii kuraasida qalabkii suuliyadii oo go'ay geerkii oo wada ruqayba dhulkaasi oo ah dhul nugaalahood didiba oo dabadeedna ay markay roobku helay uu noqday dhul wada go'ay dhamaantiis waxaan u soo gudbinaynaa cid kastoo danaynaysa ama waxqabad u leh jamhuuriyadda Soomaaliland dalka iyo dibadda jamhuuriyadda wasaaradda lafteeda cid kastoo waxqabad u leh inay si degdeg ah wax uga soo qabtaan waxyaabaha ka dhacay waanka bilaadan bayna waxaan naaluucana xagna kuma roona oo kulli isma lahayn waanu qarsanaynay isma lahayn roobka cawda laakiin abaar badan baa laga caban jiray ismaan lahayn roobka cawda laakiin hadda way hayn weyn oo dugsigan maxay tahay waanu dugsiga meel gaas dhex fadhiyo waa aragtaan kuraasada burburtay waa aragtaan barkadii biyo waa jabeen suuliyada waa burbureen geedgeedkii waa dumay galaasyada laftooda waaba galabteen dhulkii waa la degayba marka waxyaabahaas oo dhan waxaan soo gudbinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wixii kale hay'adaha caalamka iyo wixii iyo qadarka Ilaahay ee ku yimaad raxmadaas waxay noqotay mid waxyeelo noqotay cid kasta wax ka tari karto waxaan ugu baaqaynaa in dugsigaasi u baahan yahay dhismihii rebuilding repair iyo wax qabad iyo galaas kordhin awalba iyadoo ay ku badnaayeen ardayda IDB-yada ee dugsiyada dhigtaa aanay ku badnaayeen galaasyada ku filayn haddana waxaa kusoo dhacay galaasyadii oo gaabtay dumay waxyaabahaas oo dhan baa kusoo koray marka cid kasta oo ay khusayso waxaan leenahay si degdeg ah waxa ugu qabteen hawshaas iyada ku timid dugsigaas primary school Horyaal Caynaba. Cabdirasaaq Aadan Cabdullaahi Star TV Caynaba.